silsiladda kaymaha Amazon waa kuwa ugu baaxadda weyn kaymaha dunida, waxaana lagu tiriyaa sanbabada caalamka sababtoo ah waa isha ugu weyn ee soo saarta oksijiinta dunida. Kaymaha Amazon waxaa ku yaala tiro aad u badan oo geeda ah. Daraasaad ballaaran oo lagu sameeyay Amazon ayaa lagu qiyaasay in kayntan ay ku yaalaan ku dhawaad 390 bilyan oo geed. Geedahaasi 16,000 ka mid ah waa noocyo kala duwan. Kayntani waxay soo saartaa ilaa 20% oksijiinta dunida, taasoo ka dhigaysa mid muhiim u ah nidaamka hawada iyo cimilada caalamka. Waxay sidoo kale nuugtaa kaarboon badan, taasoo gacan ka geysanaysa la dagaalanka isbeddelka cimilada. Kaymaha Amazon waxay ku fadhiyaan dhul dhan 7 milyan kiiloomitir square ah, kaas oo ku fidsan 9 dal oo ay ka mid yihiin dalka Brazil, Peru, Colombia iyo Bolivia. In ka badan 60% kayntan waxay ku taalaa dalka Brazil. Amazon waxaa ku nool cayayaan aad u tiro badan, xayawaanno waaweyn iyo shimbiro. Kayntani waxay hoy u tahay xayawaanno naadir ah sida jaguar, macaw iyo maska nooca loo yaqaano anaconda. Kayntani waxaa loogu magac daray webiga Amazon oo qiyaastii dhererkiisu dhan yahay 6,400 kiiloomitir, waana mid ka mid ah webiyada ugu dhaadheer dunida. Amazon waxaa ku nool bulshooyin cawaan ah kuwaasoo ku dhex nool khayraadka dabiiciga ah ee kaynta. Waxa ay qabatimeen ku noolaanshaha halkan weliba si joogto ah.